بسم الله الرحمن الرحيم وعن ونكسن داوديال ميل والبو aad joogtaan waa barnaamij gaar ah oo aan ku xog wareysanayno professor Maxamed Cumar Dalxa oo isagu kamid ah xilwaanada dawladda federaalka Soomaaliya kana tirsan baarlamaanka jaamacadda Carabta oo dhawaan isagu soo booqday magaaladan Qaahira si uu uga qayb galo shirarka ay yeelanayaan baarlamaanada dawladda Carabta sidoo kale professorku siyaasi ma aha kaliya waa abwaan waa fanaan waa aqoonyahan wax ka soo dhigay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed berisamaadkii barnaamijkan isagu ah waa barnaamij dhinacyo badan taabanaya oo aan kaga wareysanayo taariikhdiisa iyo waxa uu u soo joogay professor Maxamed Cumar Dalxa iyo sida uu arko xaaladda siyaasadeed ee dalka professor su'aasha ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay inta aanan u guda galin barnaamijka qaybihiisa kala duwan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo professor Maxamed Cumar Dalxa waa nin caynkee ah professor Maxamed Cumar Dalxa taariikhdaada magaalada aad ku dhalatay iyo waxbarashadaada asaasiga ah ilaa iyo heer jaamacadeed bismillaahir rahmaanir rahiim saxanooni adiga iyo cameramanka oo aan salaamay marka hore iyo dhamaan dadka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan dalka gudihiisa iyo dibadiisa salaanta islaamka ayaan idin leeyahay dhamaantiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaanka dib anigu waxaan ku dhashay magaalada Walaweyn daafeedna loo yaqaano ayadaan ku barbaaray ku weynaaday waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe aan uga baxay ilaa standard 8 waana magaaladii aan runtii hanaqaadkayga waxbarasho ka sokow shaqo bilowgeeda xataa balidoogle ay ahayd meeshii aan iyadana aan ka shaqeeyay anoo aad u daayar 17 jir ah anoo uga mahadcelinayo runtii laba nin oo qayb ka ahayd fursadaasi aan helay inaan wax barto shaqeeyane oo aan weligay ilaabayn mid waa labadaba maanta way dhinteen Ibrahim Sheekh Ali Xaafuun Ibrahim Jebel loo yaqiinay iyo Umar Xaashi Aadan Allah u naxariistay oo isagana uu geeriyooday labadooda runtii taariikh nololeedkayga ilaabi maayo bilowga asaaskayga waxbarasho iyo shaqo ayay waxay ku lahaayeen abaal marka Walaweyn aan joogay ayaa hadana hiwaayadaha lagu yaqaan hobby ay ahaa oo fan oo aan bilaabo ay iyadana ay bilow oo ciidankii balidoogle joogay oo Ali Gaab abwaankii weynaa ka mid ahaa commandowskii meesha joogay ayaa heeso badan oo dadka igu yaqaanaan oo intaan fanka marka iyadana aan ku ahaa bilow iyo ma aragtay sport oo iyadana kubadda cagta aan ciyaari jiray ilaa aan soo gaaro dekadaha inaan ma aragtay aan u safto oo iyadana markaan xamar u soo wareegay ay ahayd marka saxnuuniyow 79 iyo meelaha la soo gaaray ayaan xamar u soo wareegay oo aan ka bilaabay jaamacad oo kulliyadda luqadaha fursad aan u helay anoo secondary school-keygana aan ku dhamaystay Crisbound School oo aan 15 May imtixaanka uga baxay kadibna jaamacadda fursadda la ICC scholarship oo kale ama deeq waxbarasho ayaa hoggaanka dhismaha xooga aan u shaqeynay aan uga helay iyadana mahadiya ka gaadho dadkii gacan igu siiyay ayaa waxay iyagana aan runtii ilaaweyn ayaa waxa madax ka ah hoggaanka markaasi Maslax Maxamed Siyaad then kadibna waxbarashadeedii heer jaamacad ilaa iyo dugsi hoose dhexe iyo secondary 13 sano ayaan isku helay fursadaasi waxbarashadeedii markaan dhameeyay kulliyadda afafka jaamacadda ummadda Soomaaliyeed 1984 ay ahayd waxa la ii qaatay assistant inaan ka noqdo jaamacadda ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan kulliyadii aan ka baxay afafka waxaana sidoo kale lagu meeleeyay oo hal sano kale ayagana part time aan ku ahaa runtii wasaaradda warfaafinta oo qaybta iyadana saxaafadda ama Najmat October oo aan aqoon kororsi u joogay oo rag oo ayagana ka socday Masaari iyo Suudaan ayagana jiriidadaasi oo Najmat October ayagana ay ahaayeen kuwa dhinacaas iyagana ka shaqeeya
oo aan runtii kaga faa'iideysanayay wax badan balse markii dambe jaamacadda ayaan usoo go'ay waana assistant ka noqday anoo fursad kale aan helay inaan part time aan ka noqdo macallin maartay aan joogto ka ahayn kulliyadaha saxaafadda tii afafkan oo ayada ii ahayd mid aan rasmiyan ayada la ii qaatay inaan ka mid noqdo barakaaliye sidaasi ayaa haddana معهدكي جامعة عربتا أي كلها هيد أليكسو بريق أفريقيا مقديشو أي أيضا عن كواها مارتي بارت تايم أيضا عن معلم أيضا عن جوكتا أهين مارتي حكا ديجا جيري سيدو كلا أي كالترال مارتي أتاتشيجي ومع مركز الثقافي العربي الليبي لأورجري أي أيضا لقد عربي أرضي مارتي ديجا نيسي هبلا يويلالي أي أيضا بارت تايم عن كل نقضي دبدرنا نسيديتن iyo todobadii ayaa waxaan helay scholarship oo jaamacadda Carabta siba maartay ururkooda la yiraahdo nidam tarbiya wa thaqaafa wal culuum Alexo ayaa aniga iyo rakale ee saaxiibo kulliyada luqadaha aan ka wada baxnay ayaa waxa nasiib aan u yeelanay inaan Suudaan takhasus aan u aadno halkaasna aan magister iyo diploma caali aan ku soo diyaariyo dabadeedna aan full lecturer ah aniga iyo asxaabtaydii aan ku soo laabano oo halkaan ay maartay aan noqdo hadana lecturer oo buuxa oo kulliyada luqadaha wax ka dhiganayay ama wax ka dhigayay ilaa ay maartay ka timaado maartay runtii burburkiyo iyo wixii markaa kadib 1991 dalka maartay ka dhacay oo halkaan ay ku istaagtay dhamaan wixii dhaqdhaqaaq ama waxbarasho ama shaqo oo markaa aan u hayay oo aan la wadaagay markaas dadkii Soomaaliyeed oo dhan ay saameynta ku yeelatay waa tahay professor waa mahadsan tahay marka hadii aan ka soo gudubno taariikh nololeedkaada oo aan filayo inaad si kooban oo qurux badan aad u xustay barnaamijkeena su'aalihiis waxay u badnaan doonaan arrimaha siyaasadda sidaad ogtahay dowladnimada Soomaaliya ilaa iyo iminka sida ay u burburtay sanadii 1991 way caga dhigan lacdahay marka hadii aan dib u laabano dawladii rayidka ee aadan cadda iyo Cabdirashiid iyo dawladii kacaanka adiga shakhsiyan maadaama nin aqoon-yahan aad tahay siyaasadana 30 sano wax ka badan aad ku soo jirtay sida ayaad u aragtaa labadaas dawladood waxaan tahay saxnuuni ودولتي ريتك تي ميليتريغا تي ريتك كلي ادبان runtii u yaraa laakiin wadciga nin la soo hana qaaday baan ahaa oo ku soo dhex barbaaray sanadkii 60meeyadii dawladii dhalatay wixii markaa ka horeeyay wadanka uu isticmaalay gumeysi gacanta ugu jiray oo labada qaybood koonfur iyo waqooyi haddana markii ay isu yimaadeen ee dawladii dhalatay marka ay ku midoobeen labadii gobol ee Soomaaliya iyo Ingiriiska Talyaaniga kala haysan jiray waa tii madaxweyne Aadan Cabdil Cismaan uu ka noqday madaxweyne wadanka dabadeedna ay yimaadeen walaalaheenni iyagana reer Somaliland iyagana laga siiyay power sharing marna gudoomiye baarlamaan baan u maleynayaa jaamac qaalib inuu ahaa ninkii laga dhigay then haddana dhinacaasi waxa uu magaclaa haddana cigaal oo ra'iisul wasaare asagana mar uu ka noqday wixii ka dambeeyay dhinaca koonfur ayuu miisaanka wuxuu ogaanaa oo gudoomiye baarlamaankana uu noqday Sheekh Mukhtaar Allah yarhamhu sidaasi ayadoo xaaladu maartay haddana madaxweyne isbedel markii haddana uu ka yimid dhinaca madaxtooyo ayaa madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharma Arke waatii uu madaxweyne uu noqday kadibna 69kii ayaa waxa dhacday in madaxweynihii la dilo madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharma Arke isagoo kormeer uu ku sameynayo laascaano electionkii marka dhacay 69kii ayaana loo aaneynaya oo si cadaalad darro iyo ku shubasho iyo si qaabdaran ay waxay u dhaceen laakiin sida cadaalad darrada ee loo tiriyaba Soomaalidu meel gaaban bay ka soo qabtaan laakiin cadaalad darro oo ka soo bilaabanayso xurriyadii wixii ka dambeeyay oo lagu sameeyay bilowgii
SYL raggii u soo halgamay dhalinyaradii Soomaalinimo iyo wadaniyad ku canbaxay iyo kuwii ayagana sidaas oo kale si lamid ah ayagana gumaysigii ayagana waqooyiga Ingiriiska haystay ayagana la dagaalamay ayagana kalib keenay natiijadii ayaga iyo wixii ayaga ay mudnaayeen meesha waa laga saaray. Okay, marka waxaad leedahay dawladii rayidka iyo xitaa dawladii militariga xorriyadda kadib xitaa laga soo bilaabo cadaalad darrada marka xilligaas ay soo bilaabatay. xaqiiqatan aad iyo aad sababtoo ah rag wanaagsan oo lixdameeyadii halgankii wax ka soo qaatay ee wadanka taariikh fiican ku leh way jiraan, laakiin sida awood qaybsiga loo sameeyay markiiba bilowgiiba waxaa daaqada laga saaray dadkii hamiga fiican iyo midnimada iyo Soomaalinimada iyo wadaniyada ay ku weynayd. waxaa soo galay dad badan oo markoodii hore mucaarad ahaa oo Talyaaniga la shaqaysan jiray oo dadkaasi iyaga ay barakiciyeen dadkii mudnaa ee dawladnimada u soo jajabay u soo maray yani dib iyo rafaad dhiig iyo maskax wax waliba iyo maal u soo horay. taasna waxaad ka dareemaysaa xataa raggii Talyaaniga wax la qabsan jiray inay ayaga wax allaale wixii wadanka asaga u ahaa ma garatay la dhihi karay maartay wadanka waa lagu maamuli karaa ee awood ah, ama ha noqoto siyaasad ama ha noqoto dhinac dhaqaale ama hadii ay noqoto dhinac bulsho, wax waliba waxay soo galeen maartay gacanta dadkii majority ahaa dadkii raacsanaa markii horeba maartay gumaysiga maartay ama Talyaaniga pro Italiani la dhihi jiray. marka aan ka dhaxgal professor cadaalad darradu marka xilligaasi ay bilaabatay sida hadalka aan ka dareemayo ma ahayn mid ku eg siyaasadda kaliya. cadaalad darrada dhinaca taariikhda dhinaca suugaanta dhinaca walba ayay gashay. marka waxa ugu wacan isleedahay in taariikhda Soomaaliya xitaa in ay noqoto mid cadaalad darro ah suugaantii inay dhinaca u badato markii laga hadlayo suugaanta Soomaalida waxa ugu wacan isleedahay ka aqoon-yahan ahaan. waxa ugu wacan Soomaalida waxay tiraahdaa alifkaaga xumaada albaqru ka wareera ma gartay ama alifka wareer albaqru ka xumaada. anaga gumaysi markuu wadan uu ka tagayo wuxuu uga tagaa ukuman maxaa yeelay albaabka markuu ka baxo wuxuu rabaa dariishada inuu kaga soo laabto, waa inuu dad la haraa uu meesha uu ka tagayo uu ku abuuraa. ninka abuur buu kaga tagay dadkii leegada ahaa sidii banaanka loo dhigi lahaa ayaa waxay ahayd nidaam asaga uu dejiyay oo siyaasadaasi Talyaaniga iyo isticmaalkii xataa Ingiriiskii qaybtiisa asagana haba ka qaatee laakiin ay ku xooganayd dhinaca Talyaaniga koonfurta oo ayada meesha la isku yimid caasimadii bilowgeediiba xamar markii la dejinayay qorshihii ahaa xataa degmooyinka baarlamaanka qaabka lagu soo galo waxay ahayd hab degmooyin oo kuraasta ayaga loo qeybiyay. marka waxaad arkaysaa maanta Afgooye oo aan ka soo jeedo oo maanta marka dhaqaale ahaan iyo halbowle marka loo fiiriyo wadanka waxyaabaha inta badan marka lagu xisaabtamayo resource-ka siiba xataa shabeellooyinka isku soo qabo maanta la isku dhihi jiray dhulkaas oo dhan banaadir kuwa ugu kuraasta yaray ahaayeen. xamarta caasimadda laba kursi bay lahayd. wala weyn la yiraahdo referendumkii ayada ayaa keentay codkii faraha badnaa ay ku guuleysatay xamar inay caasimad ku noqoto hal kursi bay lahayd. baraawo ayaa sabalaha 3 kursi lahayd ilaahay ku masamadiido qoryooley iyo marka adiga la isku soo dardaro ilaa Jowhar iyo dhulkaan oo dhan xataa gaarsi neankee gaalkacyo iyo xagga iyo gobolada dhexe iyo marka adiga aad aadid ama mudug aad sii aadid iyo ilaa aad ku geysid waqooyiga Hargeysa iyo Burco ayaa kaliya lahaa 2 gobol ma gartay. yani waxaad arkaysaa meel deegaamo aanan deganayn 500 qofood oo ayada laga xukumayo meel
5,000 qofood ay degan tahay ama 5,000 family population lama eegin resource lama eegin oo wixii khayraad ay soo galay oo income-ka dawladda ee meeshii ilan dhaqaalana yaalo dadna ay ku nool yihiin meeshii ayaga la siin lahaa mudnaan meelihii laga taageeri jiray dadkii ayaga siyaasadda ku soo hormaray ee iyagana ay ka soo jeedeen ayaa waxay siisteen 5 kursi 6 kursi 4 kursi oo ayaga aanan u qalmin marka cadaalad daradii bilowgii sidii lagu soo galay يعني واحد 4.5 كمان تجرو كليتو ayaa lagu bilaabay ma gartay halkaasna waxay ka muuqatay ileen waxa laga soo galaya degmooyin marka adiga aniga maanta ee walaweyn aan ku dhashay hal kursi degmadeedii oo dhan ay leedahay hadana intaasoo cod ayaa sababtay codaysay la leeyahay markii referendumkii la sameeyay iyo magaalo laga soo waayay xataa 2,000 iyo 3,000 aanan deganin oo ay 4 kursi ay leedahay meeshan hal xildhibaan baa ka imaanayo magaalo aan waxba lahayn oo qaaxil oo aan waxba jirin ee income aan lahayn wax ay dalka ay u hayso ama in wax la siiyo ama iyada la taro ama iyada in la dhiso iyada wixii laga qaado loo geeyo mooyaane wax ka soo galay aan jirin ayaa hadana waxa la siiyay يعني waxyaabo furan kadibna u sii dheeradana saxnuuniyow horumarintii mashaariicdii sustainable development waxa la yiraahdo waxa afka qalaad ay ku yiraahdaan mashaariic tanmiya oo tanmawiya ayaga hadana la siina afguya laga qaada degmo kale ayaa lagu dhisayaa way fahamsama waxa waliba sidaas oo kale ayaa waxay ahaayeen